waayahay odagu wuxuu yiri Minnesota waxba kumay soo darin Soomaalidu waa hadallo xun buu adeegsaday waxyaalo xun marka horta sida shirka uga jeedeen shirkii hadda kabinetkiisa odagu inta badan wuu hurday markuu soo baraarugay ayuu cay Soomaalida dabada u qas waxa u malaynayaa ilhaan Umar khair hasiye ayaa odaga mindha intay عربت أورنجرة سنك أنت كجشوي أفكيس دقيس كصبح ينديس يعني مركا سومالي ونبو مركا تارجت جرايسنا يا عنصر النماء ومركا يسوون وربهين وإحنا آخرين أيوه ورانا يا مينيسوتا وحكم يسودا أرد ما قبل كان مينيسوتا قبل قبوة سومالي دون وحي كتيمي قبل كلول بكتيمي يو ضدك إيست أفريقيا دقبة قبل كان isaga oo shirkadihii badankood warshadihii qaarkood qarka u saaran yihiin in la xiro oo ay ka guuraan gobolka oo shirkadihii waaweynaaye 500 fortune la dhihi jiray 500 oo shirkadooda ugu waaweyn wadanka Mareykanka qaar badan ay ka guureen gobolka ka guureen hadday noqoto IBM hadday Target hadday noqoto shirkado kaleeto ay ka guuraan gobolka ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Soomaalidan keenay meesha qaarna qaxooti bay ku yimaadeen oo toos baa loo keenay gobolka Minnesota qaarna gobolada kale ayay ka soo guureen oo Soomaalidu waa isdugsataa oo waa isdoonataa markay isu yimaadaan bay kala cararaan waa isdoontaan oo hal meel bay isku raadsadaan marka gobolka inta meel kale gobolada kale way ka yimaadeen goboladii kale laga soo guuray meesha anu 97 baa igu horeysay marka ana aqoon markaas baa la soo bilbilaabanayay si fiican loo soo degayay warshadihii shaqaalaha la'aa dadka meesha joogay nativeska u badan ama dadkan Indianiska ahaa qaarkood iyo dad xoogaa yar oo madow dadkaasu shaqo la'aan baa maaragtay warshadihii ku dhacday shaqaale la'aan calaa kulli xaal Soomaalidu markay timi ayaa ay heleen shaqaale jaban ileen dad shaqo u ooman oo shaqaysanaya baa yimi dalkii oo aan horey loogu arki jirin dadka xataa madow qaabkaas iyo dabeecadaas aan loogu arki jirin هل ورشد بقى حلقة يابا شنبقول إلى كون قف إنك كشقيان ورشديه هيلبكا ورشديه دجاجة محان كوشة ورشديه دركة ورشديه يعني علابة كلا وحصور دن ويدقاقين قولكي مقالة سيمبول إيو مينيابوليس إيو محان كوشة ويلمر إيو سكلود إيو مارشال إيو ماكيتو إيو روتشستر إيو ميلولبا ورشديه قولكا way dhaqaaqeen Soomaaliduna shaqay raadinaysay lacagna way ka sameeynaysay marka alxamdulillah iyaguna way ka shaqaysteen gobolkuna uu ka faa'iiday wax badan buu ka faa'iiday taasna waa wax qoran oo hadda hadii aad gasho kaliya Minneapolis City magaalada Minneapolis ama governorate-ka Mareykanka waxa waaye ma aha sideena oo kale wasaarad magac website isaga furanaysa oo kale ma aha website-yada waxa ku jira xogta oo dhan oo sanadkii report-yada la soo saaro ayaa ku jirta wadadkaas imise yihiin community-ga jaariyadaas cadadeeda tiradooda intee tahay maxaa shaqeeya maxaa shaqeynin maxaa ku dhashay Mareykan maxaa iyaga oo maaragtay muhaajiriin yimi waxa soo dhan waa la tira koobaa waa la qiyaasaa waa laga shaqeeyaa marka Soomaalidii warshadihii iyo shaqooyinkii nooc walba xaggi cuntada xaggi caafimaadka حقي ترانسبورتيشن كبصصكي تاكسيادي الدونكي وحصل لم بيدقاجيا ومقالات كشقيه والى ايربورت مركا كسو دغتو مساجدك اكو تكنيسو مخايدا wax ku cunayso taxiga ku qaadaya baska aad raacayso kullu aad ku arkayso Soomaali wada kadibna aad arkayso dukaamadii Lake Street tag ama Minneapolis dhexda tag ama Cedar tag ama xagga tag wixii oo dhan dukaamo iyo dad maartay entrepreneurs oo shaqaysanaya oo doonaya inay shaqaystaan oo dadaalaya oo odagii shaqaynayo gabadhii shaqaynayso reerkii oo dhan ay dukaanka wada shaqaynayaan waxa arkaysaa hooyadii oo taagan dukaanka wiilkii oo taagan odagii oo taagan gabadhii oo taagan makhaayada fadhiya 5 subaxnimo 12 yani markii aad tiraadaan ama 5 subaxnimo ama 4 subaxnimo salaada fajr ka hor makhaayada la furayo cuntooyinkii Soomaalida la bartay lagu soo yaacay meelaha qaarkood sambuuski iyo wixii loogu jiro maartay marka maxay sheegayaan
xogtaas meelahaas haddii aad ka raadiso odagu hadda ama nacayb ha u diido ama inkiraad ha u diido ama akhris la'aan iyo jahli aanu maantay dalka waxaba akhriyeen oo inta badan uu hurdo ha u diidee wuxuu ogaan lahaa horta dhaqaalaha Minnesota Soomaalidu ugu badan dadka iyaga muhaajiriinta hadda meesha jooga ugu badan Isbaanishka ka badan baa la yiraahdaa ama Mexicaanka laakiin magaalada dhexdeeda Soomaalida number 1 ah wada dhaqaalaheedu wuxuu ahaa 120 bilyan sanadkii gobolka Minnesota oo dhan marka la isku daro maanta wuxuu marayaa siduu u korayay u xiimayay oo u laban laabmayay 500 bilyan buu maanta marayaa jaariyada Soomaaliyeed wax ma soo kordhisay mise wax ma soo kordhin numberska sheegaya waxa kale oo sheegaya dadka xogta haya oo sida hadda duqa magaalada Minneapolis oo kale oo yiri waa dad aan laga maarmin gobolkuna ka maarmin waayahay haddii aad fiiriso canshuurta ay bixiyaan gobolkan dadka muhaajiriinta ah oo Soomaalidu dadka ugu badan ay ka mid tahay 4 bilyan iyo bar bay ku shubeen khasnada dawladda ama ha noqoto dawladda federaalka oo 2 bilyan iyo bar lagu shubay waa gobolka Minnesota kaliya muhaajiriinteeda oo Soomaalidu ugu badan yihiin 2 bilyan iyo bar dollar bay ku shubeen Washington khasnada uu isagu hayo odaga Trump uu hayo 2 bilyanna waxay ku shubeen tan gobolka iyo tan city-ga waa saddex dawladood moogtahay oo saddex heer way heerka magaalada heerka gobolka iyo heerka federaalka marka 4 bilyan Soomaalida yani waxa ay suuqaysiga iyo power of purchasing ay ku bixiyaan ma garanaysa dadka muhaajiriinta 1.2 buu ahaa sanadkii la soo dhaaf 1.2 bilyan 1 bilyan iyo 200 milyan Soomaali baana ugu badan canshuurta ay bixinayeen Soomaalidu si gaar ah kaligood 67 milyan baa lagu qiyaasay 285 bay muhaajiriintu oo dhan bixiyeen oo dawladda federaalka ku shubeen dawladda federaalka waxa kamida يعني nin dhaqaalayahana oo hadda professora oo yani ku sameeyay ihsaayaad ku sameeyay wuxuu yiri Soomaalidu dhaqaalaha ay gobolka Minnesota soo geliso marka la isku daro from taxi ka soo bilow dhaqaatiir ka soo bilow canshuur ka soo bilow iibsi ka soo bilow 8 bilyan way qiyaasda 8 bilyan oo dollar oo aanay degmooyinka Minnesota badankood aanay soo saari karin lacagtaas aanay soo saari karin هذا سو صار بل iska daayay ay ka badan tahay Soomaaliya oo dhan GDP-geeda hadda 10 bilyan baa lagu qiyaasaa 8 bilyan Soomaalida Minnesota iyo muhaajiriintooda ayaa ku shubaya khasnada dawladda iyo shaqo abuurka ay ka shaqeynayaan waxa intaas dhaafsiisan dabcan jiilkii labaad iyo waxbarashadii maanta ma dhaqaatiirta qalliinka مدخلات سبيشاليستياشا واحد قشا أو كوكو فيلان هدي أد معلومات كقالتو Somali American Medical Association ururka ay leeyihiin dhaqaatiirta iyo dadka xataa chapterka kaliya waxaad fiirisaa dhalinyarada kaliya ku jirta oo dhaqaatiirta ama dhaqaatiirta hadda u diyaarsan ama caafimaadka ka shaqeeya ama pharmacists ama dentists waxa inta dheer looyarada waxa inta dheer dadka business leader waxa inta dheer yani 2017 mar aan qiyaasaynay 5,000 oo business ayaa magac Soomaali ku furay 5,000 oo business magaalada Minneapolis kaliya marka maxay soo kordhiyeen haddii la yiraahdo alxamdulillah ma aha sida dhulkeena Afrika oo waxyaalo numbers badan qornayd meesha numberska yaala ummadda dadkaasuna waa og yihiin dadka state-kuna waa og yihiin مسؤولينتنا واوجهين سداس درتيد ay u difaaceen ma aha meeshan jacayl kaliya laakiin waxa weeye Soomaalidu Minnesota way noolays qolkii incaashka ama ICU bay ka soo saartay waxay u soo saartay gobol dhaqaalihiisu uu korayo in ka sareysa average-ka state-yadu sida ay u koraan state-yada average-koodu يعني وحو udhaxeeya hal iyo labo iyo saddex iyo inta la mid average way ka sareysay sidii ku koreysay Minnesota
oo 3.5 ilaa 4% sanadkii ayaa korriimadeedu ahayd. marka على كل حال وركن أنا سفر عن ماركتي هذا قدر سنة أنت وحوي لو القضب واحد ورد وضن كان أنا جو حنكوج نهاي وضن شرعية له نظام له قوانين فرد له كلا بحسينهن سلطة وحياله ومدحوينه سو صار أي قاضي فدرالي كنسل قرينيا أو توريا مركا وضن وحوي له شرعية له وحبها كدتكو يأرجحين يينا بقن أرزاق ظهرت إلهي باهية قولكنا إلهي با إسكاله إن الأرض لله يورثها من يشاء وضغان ترام بي الله تقيسو جرم البوكية شالي بو سقو أرداية أو يسي بماشي ما قلط وكبعض دل كان وحا ليراهدا مريكان لما كلا لها ولوسو كلا هرية كليا ودلك كليهم ليراهدو لما كلا لها ولوسو كلا هرية dadkii lahaa waa kuwii xasuuqay iyagoo xasuuq annagu xasuuq kuma aanan geysanine waxaan ku geysanay karti iyo wax kula soo bixid iyo wax barasho iyo aqoonba ma garad ayaan kula soo marka yaan la argagixin yaan la biqin taas waa qodobka labaad sharciga wax walba hala marsiyo hala nidaamsan saddex alxamdulillah jaariyada Soomaalidu maanta waa mid isku filan waxay leedahay looyaradii waxay leedahay dhaqaatiirtii waxay leedahay siyaasiyiintii waxay leedahay waa يعني حدق افتيمي سواي odagu haduu meel kaleeto ku hadal qabsan lahaa sida siyaasiyiinta Soomaalida iyo caayo maalin walba oo yiraahdo waxba kama jiraan de meeshaas oo kale waa laga yaabaa in loogu garaabi lahaa laakiin jaaliyadaha Soomaaliyeed ee galbeedka jooga gaar ahaan Minneapolis oo caasimadda jaaliyadaha Soomaalida oo yani buqcad iftiimaysa oo ay dadnimada iyo kartida iyo maxaan ku sheegaa wax galka dadka Soomaaliyeed ay ku soo baxday mar walba waa leenahay dad daciifa waa leenahay dad maaragtay iyagu isximinaya waa leenahay dad qaar ku mashquulsan ummad walba waxaas waa leedahay laakiin waxa waaye ummadda badankeeda dad fiican oo nuxur leh shaqaysanaya wax barta aqoon leh karti leh isku filan maxaan ku sheegaa adduunkana ka muuqdo waaye Minnesota taasi calaamad u tahay jaariyadaha kaleeto oo gobolada kale jeegana ay la wadaagaan sidaas oo kale Yurubta kale iyo meelaha kale la wadaagaan nimanka hadda Carabta oo xoolaha haysta oo dalalka haysta oo batroolka haysta oo lacagta badan haysta way nagu kuuyaan markay arkaan Soomaalidu sida ay tahay oo dalalkan galbeedka ay ugu nooshahay iyo kartida ay muujisay هنقطة مراكز تيدي سنيا هنقطة مساجد تيدي سنيا هنقطة يعني سكولة إسماعيل سنيا هنقطة وحكسته أو برشة أباهنيد أو إسماعيل سنيا أما سيدا يقول لي هي إنه برشة يقيب جلايا أو ما كان أما سياسة هذا هنقطة بقاله هذا هنقطة ويقفك صوماليا سيدي سبا أنا قد يربعنا هاي لكن وحلا جاي أبا إلهي سبحانه وتعالى حق كواليتيجا إنه ضدك حوجا كسيو oo qofka Soomaaliga oo shay ku takhasusa ama han noqdo professor ama han noqdo dhakhtar ama han noqdo lawyer wuxuu noqonayaa qof ka tilmaaman fieldigiisa ama majaalka uu ku jiro ka tilmaaman buu noqonayaa marka saas awgeed horta yaa la baqino yaa la argay midda labaad sharcigana hal laasimo iyo nidaamka iyo qawaaniinta wadanka lagu joogo midda saddexaadna meesha annagana fursad weyna siiyeen waa uga mahad celinayna iyaguna fursad bay naga heleen oo annagu waxbaan ku soo kordhin dalka ma aanan tuugsanin kaliya taasna waa in la cadeeyo oo numberiska iyo figuriska iyo waxa la sameeyo waliba waxaan ku talin lahaa in aan la aamusine Mareykan qofkii aamusa waxba kuma laha qofkii aamusa oo xuquuqdiisa aan dalban oo aan qaylin oo aan istaagin oo aan lobby garaysan waxba kuma laha marka in Washington wafdi loo diro jaaliyaduhu wafdi ay diraan la garab istaago dadkan iyagu dhinaca rasmiyaadka sida ilaahan iyo representativeska oo dawladda ku jira shacabka iyo dadka maaragtay civil society-ga ama la yiraahdo ama bulshada kaleeto oo mutacallimiinta oo maaragtay shaqaysata oo businessleyda oo xeeda in wixiina aad muujisataan oo gartiina aad si fiican u dhigataan oo aad saxaafadda gelisaan oo Washington tagtaan oo Washington aad la tagtaan caasimadda mu'tamaraad saxafi ku qabataan idinka oo bulshada Soomaaliyeed ka socda oo aad White House-ka laftigiisa ballanka ka dalbataan
oo odaga Trump laftigiisa xujada lagu oogo oo la tago oo loo tago حاولوا دومانيسان ودنكا 6 سنين سباتين شرعي با كسو غشان سيدو اسو شرعي ugu soo galay ama isagoo muhaajir uu yimi ka bacdina halka ugu dhashay baa idin caruurtiin ugu dhalatay idinkuna aad sharci ugu joogtaan isku mid baatiin wax la islaam ma laha haba yaraatay meeshan kullu waa loo soo kala hormaray ma ahine waxba lama kala laha marka dalbada oo White House ka taga oo isaga laftigiisa ka dalbada hadda waxa tusaale idin ku filan sidoo caynayay waa ogeydeen yarkii Mamdani mayorka New York suu caynayay suu halkay wadanka ka saara dalkan ka saara saana yeela waxaan kale bla markii dambena waa kuwii White House ka ku kulmay isaguna waa kii iska dhiciyay oo maaragtay ka hadlayay markii White House ka tagay wuxuu yiri ninkaanu waa nin fiican shaqo fiican buu hayaa waxyaalo badan oo aanan ogeyn buu ishay marka odagan وهذا dhibaatooyin badan ay iska haystaan cunsurinimada ha haysato waxyaalaha kale ha haystaan kibirku ha haysto isla weynaantu ha haysto jahli ha haysto waxyaalo badan baa haysto iyo xogo badan aan gaarin waa ninka dawladda adduunka ugu weyn buu kursigeedu ku fadhiya marka yaan laga gabanina ha loo tago oo isaga ha laga dalbado ballan oo ha la yiraahdo Minnesota Somali Community baa kula kulmaya hadiido isagu haduu doono kadibna White House ka iridiisa ku qabsada mu'tamar saxaafadda dhan isugu yeera xujada ku og hadii uu jeedo ma garanaysa marka talaabooyinkaas oo dhan qaada looyaradan kale dadka kale adeegsada oo xaqaa'iq tus meeshan Minnesota anigu halna waa ku farxay halna waxa waaye waa ka xumaado hal waa ku farxayo meeshii noogu maaragtay nuxur badnayd wax qabadkeenu ka muuqanayay dadnimadeenu ka muuqanaysay buu soo qaatay odob marka taas waa ku farxay alxamdulilaahi rabbil caalamiin meel aan ku ceeboobayno maaha taas midna waa ka xumaadayo yani dal dhan intuu dadkeedii isku qaaday baa uu yiri dawlad kama jirto baa madaxdeedii kullu gorodda saa u laalaadinayaan sababahana dee waynu iska ognahay oo shalay xataa markii prime minister ka la weydiiyey waxba uu ka jawaabi karo dhaqaaqin waaye iyagana waxaan leeyahay war heede war dadka Soomaaliyeed oo magaca idin siiyay oo magacooda aad ku socotaan waa ummad dadnimo leh weey waa ummad wax goysa weey dad xumi ha ku jiraan dad qabyaaladii ha ku jiraan dad maangaaba ha ku jiraan laakiin waa ummad isku soo duuduubo ummad nuxurlow ummad wax goysa ummad dahab ah war ka kaca meesha aad fadhidaan idinka halkaana dhigay maanta in sidaan naloo caayo siyaasiga Soomaaliya ee xukuumadda Soomaaliya baa noo wax waliba lama wadaago mas'uuliyadda nimanka madaxweynayaasha kaliya afartii madaxweyne ugu dambeysay ee 20 sano wadankan xukumaysay ee aan maanta Afrikaan ka maarmin oo ciidan ka maarmin oo wadankii aan xuduudihiisa soo xirin oo dhaqaalihiisa aan kor u qaadin oo warshad aan ka taagin oo shaqo aan ku abuurin oo nidaam iyo garsoor iyo cadaalad aan u sameeynin oo corruption aan ka baabiin hal majaal marka loo dhaadhaqo hal shay ma sheegi karaan sheeko bala iyo shaqada marka war dad baad haysataane ka kaca oo madaxa hoos hawla laadinina annaga idin taageerayno idin ku filane dadkiina idin ku filane wax iska dhiciyo wax iska roga war annagu qashin ma dhihin xataa dhaha war annagu cidna wax uga ma baahin waa haysanaa dhaha war dalka idinka leh cidi idinkuma xukumi karto kuwaasna waxaan dhihi lahaa xoogaa heeriyada iska tuura ilaan waxa waaye hore loo yiriyo Soomaalidu u timid nin baahani gob maaha nin wax baryaaya gob maaha iska daaya gobannimo iyo iskuma helaysaan iyo baryo gobannimo iyo geesinimo iyo baryo iskuma helaysaan iyo baahnaan aad u baahan tihiin carab iyo cajam aad maartay gacanta u horsanaysaa ma isku helaysaan war dadka Soomaaliyeed waa buuxaan ilaahayna nicmo siiyay niman yahow meesha iska qaada annana gadaashiinaan dhammaantay soconayna haddii aad saas yeeshaan haddii kalena dadka Soomaalida ay hadda dulli ma ogolaanayaan oo isdifaacayaan intay tabartooda meelay la gaartaba intaasaan ku darsan lahaa ilaa mar kale aan ka kulmayno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh